annaga markaan dhiganaynay 2006 2007 runtii waa laga warhayaa wadanka waxa ka dhacay dagaal ka dhaceen Ethiopiana imaaday runtii waa la kala orday wata hadaan dhahay xataa mar aan soo qaaday 73 arday aan galaas ku bilaabnay runtii waa la kala baxay runtii duruufta ugu weyn oo markaa jirtay oo aan shakhsi aan dareemayo waxay ahayd in markaasi wadankii dagaal uu ku jiro oo runtii qofkii arkaaba aan nolosh siinaynin waxbarashadana waxa laga aaminsanaa oo markaas ay jirtay tayo la'aan oo aan tayo lahayn qofka markuu wuxuu aad u durbidayay waliba waalidka ayaa waxa loo cadaadis lagu saaray ilmahooda ku saarayeen inay markaas dibadda loo diro maxaa yeelay dibadda meel xasiloon waxbarasho oo tayo leh oo laga fikiray wadan dhisan oo nabadoon inuu tago oo markaa wax ku barto qof walba oo jeclaa inta yar oo halkan ku soo hartay marka ayagana nasiib waxa u yeeshtaa in wadankooda wada loogu keeno laakiin markii dambe haddana way suurtagal weysay inay macallimiintii ajaanibta ahayd wadanka inay sii joogaan waxay sii dhigaan dagaaladii cuslaaday darteed marka dib ay u laabteen laakiin alxamdulillah adiib wixii ahaataba duruufo adag la soo maray ugu dambeyntii insha Allah waa lagu guuleystay waa laga soo baxay maanta alxamdulillah waxaan joognaa nimca oo ah in maanta ardadii wax baratay maanta inay ku filnaadeen ayaga iyo jaamacadii